ku soo dhawaada 10ka atoore ee ugu hantida badan dunida 2017 sidaa iyo daawasho habboon. Kaalinta 10aad waxaa ku jira jilaayga caanka ah Jack Nicholson, waxaana lagu yaqaanaa oo door muhiim u ka ciyaaraa dhanka habka caawimaadda ee filimanta Hollywoodka. Wuxuuna haystaa 3 Oscar oo ah abaalmarinta caalamiga ah ee Hollywoodka. Markii loo eego warbixinta ka soo baxday website-ka ugu caansan dhanka warbixinta filimanta Hollywoodka ee loo yiraahdo hollywoodreport.com, wuxuuna uu xaqiijiyay aktarka in hantidiisa ay dhan tahay $390 milyan oo Mareykan ah, taasoo ka dhigaysa aktarka 10aad ee ugu taajirsan dunida. Kaalinta 9aad waxaa ku jira aktarka Bill Cosby. Kani waa aktar Amerikaan ah una taagan dhanka shactirada, dhanka jilninta aktarnimada, dhanka qoridda filimada iyo dhanka heesaha. Waxaa lagu yaqaanaa filimadiisa bandhig faneedka iyo TV-yada sida filimka I Spy, bandhig faneedka Cosby, filimka I Spy-gii labaad iyo filimka The Method Man. Hantidiisa maaliyadeed waxay dhan tahay $400 milyan oo Mareykanka ah. Kaalinta 8aad waxaa ku jira Sylvester Stallone. Afkaarihiisa gaarka ah aktarkan wuxuu caan ku yahay oo inta badan kaga soo muuqda aflaantiisa magacyada ah Rocky iyo Rambo. Kaasina waa magaca ay Soomaalidu u taqaan Rambo. Aktarkan wuxuu haystaa hanti maaliyadeed oo dhan $400 milyan Mareykanka ah. Sidoo kale wuxuu ka soo dhex muuqday aktarkani filimka Kumbati Ashqi, filimkaasi oo ah Bollywoodka. Kaalinta 7aad waxaa ku jira aktarka Johnny Depp. Kani waa aktar Amerikaan ah si caan ah loogu yaqaano Captain Jack Sparrow, magaca uu kula baxay silsiladda filimkii The Pirates of the Caribbean. Hantidiisa maaliyadeed waxay dhan tahay $400 milyan Mareykanka ah. Waxaa kale oo haystaa buugga dhacdooyinka adduunka lagu liisgareeyay 2012 aktarka ugu mushaharka badan kaasoo qaata $75 milyan Mareykanka ah. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Mel Gibson. Aktarkan waa aktarka kaliya ee loo yaqaan hadyada akshinka markay tahay jilliinka filimada. Waxaa ka mid ah kuwa lagu xasuus badan yahay filimadiisa silsiladda filimka Little Weapon, Buddy Cop iyo silsiladda filimka akshinka ah ee Mad Max Post-Apocalyptic. Hantida maaliyadeed waa $425 milyan Mareykanka ah, taasoo ka dhigan aktarka 6aad ee ugu hantida badan dunida. Kaalinta 5aad waxaa ku jira Tyler Perry. Kani waa aktar Amerikaan ah, wuxuuna dhashay 1969. Sanadka 2011 shirkadda Forbes waxay u magacaawday ninka ugu mushaharka badan dhanka jilitaanka madadaalo, kaasoo qaata $130 milyan Mareykanka ah marka loo eego shirkadda Wikipedia. Marka hantidiisa maaliyadeed ee aktarkan tahay $450 milyan Mareykanka ah, taasoo ay ka dhigan tahay aktarka 5aad ee ugu hantida badan dunida.